السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يالكسو دوادا كانال كان مقعيقا waxaa la yiraahdaa Maxamed waxaana maanta meeshaan uga hadlayaa lacagaha loo yaqaano digital currency ama lacagta laga isticmaalo computerka hadii ay haysato computer hadii ay haysato internet lacag aad isticmaali karto adigoon u baahnayn bangi adigoon u baahnayn qof aad la xiriirto adigoon u baahnayn in bangi bari la furo ama uu xiran yahay bangi marka lacagtan difference-ga u dhaxay waa maxay fiat-ka lacagta cryptocurrency-ga fiat currency-ga waa lacagta amaanta isticmaasho oo warqada ah oo soo saaray bangiga dalka degan tahay ha ahaado shilin Soomaali ama ahaado dollar cryptocurrency-ga waxa soo saaray ama faa'iido u yeelo waa dadka isticmaalo waa adiga waa aniga iyo dadka nala mid ah lacagtani loo yaqaano crypto adiga meesha aad joogto waa ku isticmaali kartaa mobilka ka isticmaali kartaa computer ka isticmaali kartaa bangina ugu tagaysid oo uga baahnid inuu ku sii ogolaasho aad ku isticmaasho lacagtaas waa sarifi kartaa oo lacagta waxa u sarifi kartaa lacagaha kale ka soo qaad hadii ay haysato bitcoin waxa bitcoin gaas u sarifi kartaa u bedeli kartaa ethereum ama solana ama dogecoin cardano marka waxa jiro boqolaalo kun oo shilin oo loo yaqaano cryptocurrency sida lacagta maanta isticmaalo fiat-ka dollar jiro euro jirto Soomaaliya jiro waa sidii oo kaleeto lacagahana waa la isku sarifi karaa oo midaan ahaysatid mid kale u bedeli kartaa laakiin aan kula taliyo oo kuwaaniyo lacagahan marka qaar koodna kore u kacaan si dhaqso ah marka qaar koodna hoos u dhacaan si dhaqso ah waxa laga yaabaa maalin gudaheed in 50% ee hoos u dhacdo lacagtaas cryptocurrency-ga isticmaashid laakiin lacagta fiat-ka ah saasoo kale ma ahano hal maalin gudaheed laga yaabo inay ku dhacdo 50% hadiisan u jirin market crash oo macnaha suuqi oo isdhaxyaan oo eber noqon marka lacagtan hadii aad diyaar u tahay in lacag ay ka dhunto hadii aad diyaar u tahay in aad isticmaasho lacag aad geliso oo adig ka dhimato lacagtaas aadan u baahnayn hadii aad meeshas geliso waxa laga rabaa in madax aad gashatid lacagtaas waa ka sabri karaa hadii maanta ay eber noqoto waxa idin leeyahay cryptocurrency-ga waa maanta adduunyada technology-ga tilaawada ay hor u qaadayso waa lacagta hormuudka ka ah laakiin lacagahan dawladaha adduunyada ma wada isticmaalaan waa may hal wadan adduunyada ka jiro amaanta wuxuu u isticmaalaa lacagtaas lacag wadanka laga isticmaalo waa wadankaas waa El Salvador bitcoin-ki oo wuxuu ka dhigtay lacag wadanka laga isticmaali karo dollarki waa laga isticmaali karaa wadanka bitcoin-ki waa laga isticmaali karaa wadanka laakiin la socdana adduunyadii digital currency bay u tartamaysaa shirkadihii waaweynaa bilaab inay qaataan lacagahaas oo markii aad tagto ka soo qaad shirkadda loo yaqaan Tesla oo kale hadii la tago waxa laga yaabaa in maanta ka aqbasho bitcoin inaad dhahdo bitcoin lacag ku dhiiba baawur ku gadana marka maanta maxay idin hortaagana waxa waaye waa in aad tuso horumarka adduunyada ka socdo waa yar ha ahaado ama weyn ha ahaado wiil ha ahaado ama waalid ha ahaado walaal ha ahaato ama hooyo ha ahaato in laga wada mid ahaado tartanka maanta adduunyada ka socdo wax walbo aad ugu baahan tahay crypto aniga ku soo gudbin doono oo ka soo hadli doono sida ay kor u aado sidee hoos ugu dhacdo sidee isaga ilaalin kartaa riskiga sidee aad u qaadan kartaa riski aad ka bixi karta maanta aad awoodo maxaa sameey kartaa si aad u gasho lacagta koowaad oo crypto ugu invest gareyso waxa u baahan tahay ka soo qaad $5 waxa laga yaabaa in aad u baahan tahay $10 ha ka cabsan oo ha isdhihin ma hayo $100 ma hayo $1,000 maxaan ku galaa sidaan kula tartamaa bangiga sidaan kula tartamaa dawladda lacagtani waxay sameysay in la wada tartami karo dhammaan oo loo wada simayahay ama bangiga ha ahaado ama dawladda ha ahaado ama ha ahaado qof shacab waxa laga yaabaa in aad isweydiinayso ninkan wuxuu ii sheegayo intoo ka soo maqlay intoo ka soo akhriyay iskool uma soo marin kama soo akhrinin meel si aan kaaga sheekeeyo waxaan ka ahay cadeen nool aniga waxaan ku sameeyay maalgashi lacagtan cryptocurrency-ga hal sano gudihiisna faa'iido ku sameeyay marka waxaan ka hadlayo waa experience khibrad aan ka soo maray hadda maanta la joogan aan ka mari doono kamana bixi doono crypto weligii waa ku jiri doona waa maalgashiga aan u jeedo mustaqbalkayga marka ma ka heshay videogan like subscribe gambaleelkana riix oo ha iloobin sababtoo ah
waxaa maqli doontaa markaa video cusub soo saarno. Commentina ka bixi haddii aad leedahay wax codsi ama aragtid inaad soo gudbiso fikirkaaga. waa mahadsantahay.